nin la yiraahdo bilow oo anagu aan naqaano oo aan Nairobi ku aragnay oo qayla oo alkulista ah wuxuu ku tilmaamay nabiyullaahi Muhammad salawaatullaahi wa aska tasliimaat waxyaabo badan ayuu ninkaasi gaalkacya ka waday waxa ka hadlay culimo badan oo Soomaaliyeed baa ka hadashay qabiil baana lagu difaacay soonqaadkii baan gaalkacya tagay waxaan iriyaa ila duulaya oo igula duulaya Cabdiweli Cali Cilmiyare yaa igula duulayaan iri markaas qof waliba wuxuu yiri or kaliga ku duul waxa ay cadaatay reetolkay inay raali ka yihiin bukhliga iyo xumaatada oo Cabdiweli Cali Cilmiyare oo ku hayo gaalkacyo hadaba go'aan baan ka qaatay beeshayda oo ah Saacad Saciid go'aan baan ka qaatay ilaahay aayad quraana wuxuu ku leeyahay wattaqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum qaasa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin fitna ka baqa oo aysan ku gaar noqonaynin qofkii sameeya kaliya waa fidno Cabdiweli Cali Cilmiyare waa dijaal waa nin diinta islaamka kullay ka baxay waxaana u daliila saxaabigan la yiraahdo jaliilka saxaabiga jaliilka ah ee Abu Bakar Siddiq man sabba Abu Bakar faqad kafara Abu Bakar qofkii caaya ama wax ka sheega si kas oo amdi Abu Bakar qofkii caaya Abu Bakar Siddiq diinta islaamku uu ka baxay kuma jiro Nabi Maxamed bal waa ka sii awleysan yahay oo Nabi Maxamed ninka ku tilmaamay Sheekh Bilow adeer Saacad ku wada jiri mayna Saacad aniga anu dad kala wakiil kama ahi ninka Nabi Maxamed Sheekh Bilow ku sheegay Cabdiweli Cali Cilmiyare adeer Saacad ku wada jiri mayno ama caawana Saacad ka baxahaya oo ka faaruqaya ama Saacad oo dhan baa go'aan ka qaadanaya ma ku wada jirayna Saacad sheer gareeyo halla sheer gareeyo anugu caawa Saacad waa ka baxay Cabdiweli Cali Cilmiyaraana uga baxay mujrimkaani masiixu dijaalka ah ee gaalkacyo gubay oo xoolaheeni baabi'iyay oo gabdhaha hadeertaan gabdhaha yagii buu yiri inni kiya farxiya fiska ma ka yeelayso iyo farxiya kaba yare kama yeelayaan diinta niika ku jirta wallahi san ka yeelay diinta niika ku jirta farxiya fiska ayadoo og inay dambi iyo boqol ku dhex jirto diinta niika ku jirta oo aayada yawma tashhadu alayhim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna ba daliil u ah adeer farxiya kaba yara xataa ka yeeli meesay macdareen wallahi san ka yeeli baad allah dad cilmi bartay oo hadii ilaahay ku idmahayo diinta yaqaan oo magaalo dhan ku nool baad rabtaa inaad waxaas la soo dhax istaagto mujrim yo ilaahay ka furta هاي وريا هلا شير قرايا هلا شير قرايا Cabdiweli Cali Cilmiyare iya aniga Saacad ku wada jiri mayna caaw wallahi inaan ku wada jiri wax shaqa isku mali maxaa yeelay reetolkay markaan u tagay oo aan iri Cabdiweli hal igula duulo bay waxay yiraahdeen orad kaliga ku duul ninkaasi faraan ka qaadayna Sheekh Ahmed Samatar weeye Ahmed Samatar ninka la yiraahdo gaalkacyo caan buu ka yahay Sheekh Ahmed Samatar weeye ninkii aan video ka soo muuqanayo oo dhahaya Cabdiweli markii maxkamadda la saaray anagu wax dambiya kumaanan arkin haddana masaajidka qaadiristu kitaaba ka akhriya oo dadka ka wacdiya Ahmed Samatar waa caan reegaalkacyood waa yaqaanaan bal diinta aan ka dhageysanayna Ahmed Samatar inuu yiraahdo ninkaani mujrimka ah oo ilaahay ka furtay wax dambiya kumaanan aragay maxkamadda laga sii daayo adeer Saacad qurun awal ba abshir bacalla diinta idin gaarsiinayay oo munkarka idin ka reebayay oo macaasida idin ka reebayay oo waxa aad aaminsan tihiin inaysan diin ahayn idin sheegayay asagiina ilaahay baa oofsaday
laakiin ku wada jiri mayno cabdiweli iyo aniga sacad caawa ku wada jiri mayno dad badana ila yaabi doona oo dhihi doona abwaan xaraga ma waasha ma waalan tolkay go'aan li'ida iyo waxaan ku nacay wariyaa kii tuuga go' shaalaan u gugina iska daaya waa inay hebel faraha ka qaada ahay kii qof dilay aan diyada ka bixino berriba qof kale dilaya ma oga ahay kii diinta nabi maxamed wax ka sheega soo inay hebel maahan naga daaya suus ilma kala naga marane soo ilma kala naga marane reetolkay ina camal wiil boqortooy waa ku salaamay saxanuuni waa ku salaamay waxaan horta asaga fudud in tolka laga saaro laakiin reetolkay raalli bay ka noqdeen saacad raalli bay ka noqdeen in cabdiweli uu ka mid ahaado nabi maxamedna uu nagu dulcayo wallaahi inaana joogayn meel nabi maxamed lagu caynayo oo aayadihii quraanka lagu bedelayo oo gabdhaheennii la leeyahay soo niikiyo oo diracyo soo qaata oo haddii ilaahay kuu idmahayo diinkii ilaahay nuuci walba loogu ciyaaray ku wada jiri mayna cabdiweli ma ku wada jirayno haddii ilaahay kuu idmahayo anugu saacad waa ka baxay ama ha layla yaabo ama yaa layla yaabin saacad diin islaan maaha waa laga bixi karaa munkar buuna maanta la yimi wariyaa habar gidir iyo haddii ilaahay kuu idmahayo qabaa'isha kale ilaahay wuxuu yidhi qabaa'ila litacaarafu isku aqoonsada war qabaa'isha kale wax calaama ay ka soo iftay sacad baa laga ka arag hadda ka hor baa wuxuu yidhi sacad baan ahay anoo lahu arkay nin ogaadeena markaasuu iyo sacad ha sheegan saar maxaa jira waa qabiilkayga waa ka dhashay xagaan ka aadaa suuye calaamadihii qiyaamaha qayb ka mid sacad bay ka soo iftay buu yidhi ha sheegan faraha ka qaad balaayasha idin sheegan mayo maanta wixii ka dambeeya anugu sacad waa ka baxay cabdilla shideeyaan tagaya dhalashaan samaysanaya dhalasho kale waxaan iska aadayaa qabiiladan kale iska dhiibaya habar gidir iyo cayr iyo saleymaan iyo saruur iyo waxaasaan iska dhiibaya waa ka baxay wax alla wixii ilaahay caabudahaya oo nabi maxamed uu la weyn yahay wax alla wixii nabi maxamed uu la weyn yahay baan u galahayaa waa ka baxay sacad anugu caawo maxaa yeelay bukhli bay raalli ka noqdeen ilaahay baan waxaan ka baqahayaa gaalkacyo malakul jibriil intuu soo dego waxaan ka baqayaa gaalkacyo in la gadiyo sheergareeya muuqaalka sheergareeya muuqaalka hala sheergareeyo dadkana ha soo bataan waxaad alla nacaawa ku wada jiray sacad ama dad badan baa iraaci doona oo igala bixi doona sacad dad badan baa sacad caawa igala bixi doona haddii ilaahay kuu idmahayo ma sacad baa lagu jiri karaa wallaahi bilaahi tallahi lagu jiri kara laguma jiri karo waa cadaab sacad noloshiisu maxaa yeelay cabdiweli cali cilmiyare nimanka qabiil ku difaacay ilaahay baan ku dhaarta habaar baa soo habeen waliba waxaa soo degaysa caradii ilaah qoom waxaa la yidhi ama sacad ha laga saaro cabdiweli cali cilmiyare ama anigu abwaan xaragaa waa ka baxay sacad kuma jiro raxan weyn baan u galaya oo wallaahi bilaahi tallaahi raxan weyn baan u galaya ka baxay sacad anugu nacallaa taariku salaad ku yaal waryaa wuxuu ku leeyahay haddii ilaahay kuu idmaayo waa laga rafciyo soonqaadkii gaalkacyaan jooga anugu 28 buu yidhi ummaddii waa la afriyey oo samaa udunya sidratulmuntaha baan tegay ku yidhi bal fiir ilahay sidratulmuntaha ma taqaanaa waa geedkii nabi maxamed iyo malakul jibriil ay ku kala hareen wey 7 sama midda ugu sarraysu ku yaallaa malaa'igta samada ka timaado ilaahay agtiisa qudamada ka ma soo dhaafi karaan geedkaas kuwa samaa udunya ka tagana geedkaas ma dhaafi karaan waa raanabood waa meel malaa'igta samaa udunya iyo malaa'ig samada labaad iyo samada saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo toddobaad ay ku eg yihiin wey kuwa kale ay ku eg yihiin nabi maxamed baa malakul jibriil uga haray meeshaas sidratul muntaha baan teganin dhahaaya kufaar wey ilaahay diinkiisina waa kadeecay ma ku wada jirayna sacad wallaahi aanan ku wada jirin iyo weynaha ilaah qom waxaan noqonnay dulli oo waxaan noqonnay ab iyo isr midna aan lahayn
oo waxaan noqonay aan ilaahay iyo nabi ka xishoonin wariyaa ilaahay iyo nabi maxaa horta idinkugu jiraa ii sheega saacadow maxaa tol iigu tihiin maxaan idinkugu jiraa ii sheega nabi maxamed nin caynaya oo aflagaadaynaya oo diinta nabi maxamed ku ciyaaraya oo bilow nin nabi maxamed ku sheegay baad u gurma laadihiine maadaa cadow miyaa iga fujinaysaan iga fujin maysaan nabi maxamed dad ka damqan waayey anigu iga damqan mahayaan waan meelahaasaan dhalasho kale ka raadsanaya ummadahaas ilaahay baan u galayaa soomaali waa weyn tahay wax isoo dhaweeyo waayi maayo tolku awood bay wali cabdiwali cali cilmi yare meeshiisa anaa arkay ban yaa laisku sheegin sacad buqliga waxbuu ka og yahay nabiga in la jaa'ifeeyo kala baro barbaa qaba haddii ilaahay ku idmahayo gaalkacyo waxa kaa jiraahay waxa weeye hadda waxaa la yidhi 70 naagood baa la fura la yidhi asbuuc gudihiis waxaa loo furi waayey anugu naag cabdiwali usoo niikinaysa miyaa guri ii joogaysa wallaahi sii joogini billah wax la fura waayihiin wax la cayriyana waayihiin gabdhihii bay ka duufsadeen wuxuu yidhi inniki caawa iga farxiyo yidhi intuu qanjirka kor u taagay caawa iga farxiya maxay kaaga farxinaya doolaha iyo garaaca arigde aawa gabdho meeye aawo nimankii aawo caqliga lahaa aawa culimadii aawo xagee la aaday ii sheega war waxaan sacad ugu jira caawa halkaan iga sheega haddaa leedihiin niyahow waad qaldan tahayna ii sheega anugu sacad ku jiri mahaye ninkaas wariyaa asagoo dhanba wuxuu haystaa wax 4 daba jeex ka yar anaa sahmiyey oo u tegey oo arkay 4 daba jeex wax ka yar baa u yaalla meesha kitaabka jaamcusan 2 sac dagaalami kari waxaa iri ninkaa nabi maxamed ka qabto ama aniga isiiyaa iri ciidan isiiyaa iri 10 wiil isiiyaa iri 10 wiil oo hubaysana siiya cabdiwali jannada aan masaajidada iyo soonka iyo xajka iyo aan u raadinayno cabdiwali bay xaqiisa jirtaaye isiiyo 10 wiil baa shaytay u qodleen bay yiraahdeen waa soo dardaarantaa malayn wallahi billahi tan ninkaas waa nin bala ka dhacday makaas raali ka ahay cabdiwali tolka ha laga saaro war sacadow may maqlaysaan war caawo anuu qabiil inaan ka hadlaa ma ahayn abwaan Soomaaliyeed baan ahay qabiil inaan ka hadlaa targetkaygu ma ahayn dadkan xumaha ka reebaa wanaagana faraa balse muuqaala galabta cabdiwali aan ku arkay oo aan YouTube-ka ka daawaday baa xilligan caawa qadka isoo galiyay ma ku wada jirayno sheega waxaan ugu jiro qaldantiinde anuu gaalkacay waxaan tagay ramadaankii hal bil baan ma gaalkacay cabdiwali waa mujrim baa ilaahay ka furtay saanin baa dad soo boodiyay inuu sadaqay weeyay maxaa ka rabtaa saayir sadaqa muusa diinta ka bixi kari oo waka suyadu ka baxado maxaad ka qaban kartaa inta u tagto ninkaasi ma soo dhibaateyn kartaa war maya ma dhibaateyn karo dee yaa agteeda ku cay ku yiri oo hadda waxa weeye man ra'aa minkum munkaran falyuqayyir biyadi fa in lam yastadi' fa bilisani fa in lam yastadi' fa biqalbi samahin xadiiskii nabiga war haddaad munkar aragtaan gacantiina ku suuliya ay waa awoodi weydeen haddaad awoodi weydaanna carabka ku suuliya dee carabkii anoo ka wadu ninkaasi toorrey iila bax gaalkacyo dhexdeeda heer waxaa la gaaray anigu aan lacag layga siiya ninkii la yidhaahdo ninkaa ka lex midida aad kula farabaxsanayso xamar buu ka yimid waa ciyaal xamare wuxuu og yaal lama arka ciyaal maamo weeyaan sidii lagu qanciya ninkii bal qoodhaa iyo xerada ilka iyo aaqirka war wallaahi xaqa inaan ka gambanayn may maqlaysaan anugu inaan sacadow ku hayo waxaa igu kallifay bukhliga beenta barabagandada habba ninkii nabi maxamed iyo quraanka iyo diinta ku ciyaaraya oo aan raalli ka nahay war waxaas ma diinba ma muslimnima ma tolnima ma sharafba ma cirdiba xaguu jooga qofka nabi maxamed ka daqnan waay salawaatullaahi calayhi xaguu jooga billahi calaykum kulligeen aan ka baxna sacad xalana ka bax sacad tol iyo qaraaba haddaanaha ka bax ninka la yidhi Haris Sanchez aduguna ka bax inta sacad meeshaan ka aqoonayaan tirinaya ina camal ka bax aduguna ina camal ka bax ku jiri mayno kitaab ina camal ka bax wallahi billahi tallahi inana ku jiri ka bax ina camal sacad ka bax Haris Sanchez aduguna ka bax yaa kala meesha iga muuqdo ii kaadi wallahi billahi haddaan sacad qof haduu idin ku hara qof
qof hadduu idinku haro hadduu qof idinku haro yaa waa soo dhaash eeyaanku weela balaaya beerka idinku dhufataan ahay ma iska qabtaan ninka doofaar ibraahim cali waa ku soo qabanaya ibraahim ii kaadi war ii kaadi niyahow way dhiigga igu karsanay ahay ahay ina camalaan soo qabanaya ii kaadi ina camalle السلام عليكم. السلام عليكم السلام أبوانا. أنا عمل لسودو أروح عاو سعد وأكبح يا داي ترسنجرتي. الداي ترسنجرتي. عاو وحي كدم بيا تردك وقمتشر. أنا أقول هاي الصار أنا أقول هاي الصار وعادي أداد وكبح. كبح لا لا كبح والله العقبة شرم المتشوف تشرم البامبيل كوكوسينا يا كبح سعد كبح. كبح سعد. وحلو شيء كلام ما. محوها عنك. أرتنيك النبي عاي محوها هذا. وريا سيارت وكي سوما عندك ومدنا كمان أرض نيكو أنا سعادة هاي وبهوين وأنا شعار علم يروي كن برقنا وريا سومالي يقول واجي أبديها تشوق سو كمان ورقبين أو أيها على النولا أي كرسكا ودكتور دقاقي توقابي هلمي والنكيري اسقورعي لغرقسي أكون نولا برتاس ونكان أسوق جيل شراء كو أقان أنا الله وحنا لا تشوف هاي نيروبي بوتجي لكن نبي هرتنيكم مقال كعيو كنول يا مسحو كنول يعني يعني ما تقانا ماشي برونا كل اللي ترني سيف يعني نيكي النبي شكلنا ساعد معي لكن يونيك النبي شكلنا وحليها دتك لو طولك يكفر يونيك لو طولك وحليها هاي نيكي النبي شكلنا ساعد معي عادي سوا برون تهايبه نبى وير وقال يا طيبي يا طيبي صاير نسعد بركة علىنا أي مركز وير ساعد مية الله إلا بيا كلا باشا كلا هذا كلا صاير حاجة هذا كبع ساعد شو على مدى قيامها يا كسر بعد وير أرت أبوان ورت أنا أبوان كليو كنت شنينا تورت مالها ورت فيسبوك دي هالك وقوار كودة أبوانك جرارة يقبيضة كبحية ما تنام معناها ترى ساعد بان كبحية وطول كده ما أها وضدك هبر قدر يقول صريع هنا ترى وكبحي لنحن أو جافية والنبي وحكش قدرت ساعة ترى وكبحي والله قابني السجان كسارنا السجان أطول بتصنينا السجان ياه كراعنا أشر بنكر هذين أشر ما يدرس كل هذين فكر كاسان كنت هاجر سنة إني كنا دراويش هذا اللي قبل دراويش بنسينا يا أنا على أي حال أنا اللي صود ويو أنا قبيلة كلا أقولها وحوي أديك العبد ولا لقى سرايا إلى وهدان سعد عبد ولا لا ترصده قبلا يوين الآن الله ودي قبلا يوين الآن عبد ولا إنا أنا لا ويا والله والله سحني تصل صح ما لا ورنبي محمد عيا محير متقن أنت لما كلمة شيء جاي يقدر يسوي كر يقص كتورة قولي أنا إسماعيل كر يقص كتورة وعن كوير ما مغلسة وهو يري المبادن كان قرنا يا أبو يري أبين ولي بنا وحن أتق أبو يري لاهي ألف لام ميم را ضا سين ميم آية سورة أول كودة آية سورة أول كودة كتير لايف بان كتير قد ما هذا عثمان قد تلفق لايف بان كتير قد أنا هذا رقع علي تلفق قد وعن كوري هي آية سوحي الله أعلم بمراده بذلك كليه في أنا ما يوديان بين محل إلهي يقول دينها يا أنا المبادئ كجرها يا كلها وآيدي إلهي اللي داين الله أعلم والله هو شركي والله هو شركي مع عدان كمان ودل قادرين وحاس كودب عدان كمان ونبي عين إنه قف صوماليا إنه معنا عايو النبي جينا صلوات الله عليه محمد الله وحكولية وحكولية قبلها إني قبلها ما عرفت دور قبل هذا كأقول ماشي إني دور قبل هذا أقول هذا مقعد إنه مشاكل رجال ما يحبها الشيء إنه ماشي وبابلي
ما يا waxbaa ابواني sheegin ابواني استر abwaan استر horta استر abwaan horta waxaa sharafta ka dhigaysid oo maryaha ka dhigta waa gabdho sacda kowdhe abwaan ka kal yaray ilaahay ka baqo sabo markaan arkay ayadoo ku sheekaysanayo oo la leeyahay gabdhaha niikinaya muujeeda waa gabdha sacada qabiilkii oo dhan baa ii soo uray waa ii soo uray wallah waxa aa uga baxaya waa magac xumadaas gabdhaha niyo niikinaya bal qoodha iyo xerada iyo ilka iyo aqalka nin weyn oo gar labaataay ku jiri ka qabiil noocaas meela ugu baxna ma laha kee aadnaada hadda naga saarta sacda kee ummad ilaahay baa soo dhaweynaysa wariya ayr baa ayr baa tirada ka yaa batay ayr tirada ka anaga batay tira badnaaya sheegay de waa abbaanana waa ka sareynaa waxaas oo niyo hoosa noo dhigid waxa dikaaba ka sareynaa weydo wado kaaba sareynaa weydo iyo tabeelaha yaa siyaasad bay gelis anigu waxaa ka gubtay kaliya waxa weeye macnaa ninka nebiga wax ka sheega laakiin qabiil horta inaa meesha keena ma fiicneen aad tiraahdo sacad saciid baan ka baxaya ma fiicneen absolutely abo ani waatay gaalka wax ka jaahil bixinaya gaalka ayaan tagay waxa ay inaan waxaad u socotaa leeyiri soonqaadka inaad joogo waa maqashay gaalkayo waa si fiican kula socod meel walba lugta dhigayso waa la socdaa anigu maxaad u socotay baa leeyiri saayir cabdiwali cali cilmi yara inaan ku janna tagaan u socday oo aan dilo baayir saayir maxaa kala dhaxay cabdiwali qabiilkii baa ilaa saacadaha saayir nabi maxamed baa naga dhaxeeyay ayna uma ogolasna waa caayir soo bilow ku tilmaamay nin mufti sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على محمد نبي محمد بان نغا دخايا اري اسغانا عايه idinku hadii nabi maxamed uu damqaray adeer ana u damqaday oo nabi maxamed u dhimanaya wallahi waan u dhimanayaa baa iri abduwali soomaanaha wax habsina inta iska dhigo galgacayl hab u siinay la waas naqaanay aan midi u xalulin lahaa baa calaash dalaq halna maahan kowde waxa halna maahan oo tolkoo dhan baa rabaa inaad macnaha inta galkacad ma jiro muqdisho ku sugan tahay muqdishaan jooga galkacaya ilaahay geyn rabbiyo jilab hal jilab geedii waa wada qalalay hadda ninka see anigu ma rabo abwaankii beesha adigu waa inaad ka baxdid beesha saacad anigu aad hadday danaynayaan oo abwaankoodii labaad anigu aan ahay abshir bacalla kaba tagta oo abwaankoodii labaad anigu aan ahay oo aan xibin ugu fadhiyo cabdoole bay saacad ka saari doonaan anay soo celin doonaan laakiin anigu cabdoole baa saacad hadda uga baxay biswi hadda taa go'aan ku gaartay anu ma soo dhaweynay laakiin taa ma soo dhaweynay abduwali ninkii u go'a ninkii ka go'a baa la arkaya anu horta caawo waa ka baxay sacad waa go'aankayga sacad waa ka baxay caawo kuma jiro biri fog cabdulla shideeyan aadahaya waxaan soo go'aya dhalasha raasanaya ay maxaa ka leedahay marka abwaanka maxaa ka leedahay ninka waa nin daraawiisha ninka ugu horeeya ku soo dhaweynayna marka waa kugu taageersanay macnaha ma lagu jiri karaa talkaas walaalo talakeen laguma jiri karo ilaa calaykum laguma jiri karo nabiga horta reegal kacoodkan maxalliin adigu ku gartay maanta wax xaniilo soo fadhiistay wax xaniilo ka gubtana ka maxalliin saajidkii ma taqaanaa sheekh xasan qaadiriste ma taqaan si fiican waa sangool ku yahay ninka aqriya oo caana oo la yaqaano oo anu aan la kulmay oo aan iri maxay taa baadilkan iyo fitnadan aan wado oo la yiraahdo sheekh Ahmed Samatar sheekh Ahmed Samatar in la yiraahdo YouTube ka hadda gal maxkamadayntii sheekh Cabdiwali ku qor ninka faruurta gaduudan leh oo meesha fadhiya oo dhahaya wax dambiyo kuma aanan arkin qadiriste ninka hay wax dambiyo kuma aanan arag buu kuma haysan ninka markii la xiray ninka mujrimka ninkii soo daaya horta waa ma abwaan codkaaga gogaay waxaan ku yiri mar ma la maxkamadeeyay ninkan mujrimka ninkan gaalka Cabdiwali mar ma la maxkamadeeyay may lama socota anu war uma bahay nabi maxamed markuu sheegtay mar baa la xiray Soomaan warka maxaa loo dili waay ka dilbu waa markii la xiray odayaashii dhaqanka baa inta soo ordeen bay yiraahdeen ninkaani waxay ka rabaan waa nin reehilowla filanka wada nin wadaad reehilowla yiri waa mujrim gaal moog oo la yiraahdo macallin maxamed macallin abshir oo raaciisa baa wuxuu yiri waa gaal ilaahay ka furtay waayu kol baan ku jiraa war kuwa anigu naftiga soo wacay waa la yahay nin sheekh Cabdiwali nin nadira ku imaay macallin maxamed macallin abshir la yiraahdo oo sacdo reeyilowla oo wadaada macallin aragtaa marna nin ka hadlaya garka weyn macallin maxamed macallin abshir baa la yiraahdaa si fiican ninkaas baa yiri waa gaal weeye ilaahay qofkii ninkii nabi maxamed wax ka sheega diinta kuma banaana waa gaal
كمد معهن دلكيسا بنان إن مسافريا بنان نصب كيس عرض وحي صوت نك هذا إن دين الإسلام كبحي ويلي حكم كيسنو وادل صح محلو بهوينتي دلوا أيد هذا محلو مثلا ديست نكا لما ديست بهوينتي نكا محلو ديست بهوينتي صوب بهوين كمان أنا أصوب شعار علم صوب بهوين معي ها بهوينتي أصلا ها هيد بوحي كري ولا تكسر ريل ولا ما أنا ريل ولا وده كور بشعار علم يروي war أنا 13 بهوين وانا 13 lafood kalama laan gaabsananiyo kalama laan gaabsan ما كان 13 لا eeg قبل adeer وحي adeer ينادين وحي adeer ينادين laan gaabyo ريل وحي ينادين 13 wadaadku yuu ahaa bay yidhahdeen warkaan aan ku dhameeyo adaaba ka bixi doona hay caawa wallahi ku jirayne waxaa la hay yidhi wadaadku yuu ahaa bay yidhahdeen oo shiiqa gaalaysiiyey saa la yidhi wadaadku hay reehilowna weeyaan la yidhi say yidhahdeen wo baaweyntii adhahaysaa oo ka dhashay midkaan mujrimka wo hay reehilowle hadda ka hor bay sheecale cilmiyaro weerareenoo shiiqii baa ka baxsan waayey maantana ma wiilkiisa bay u dhigteen hay wallaahi bilaahi tallaahi waana raadinayaan culimadii inta fadhiisteen waxay yidhahdeen inta dagaalka weyn dhici lahaa aan gaalkaan meeshiisa u dayno annagana gaal nagu dhex jiri maayo may waa asaga saareen adigu abwaan adigu kaliya aniga horta waxaan ka dhiibto macnaha hadalka kaliya harka ergaan ka dhiibto waxay tahay inaad adigu halkaas nin oo mujrimka oo kufaarka oo gaalooba mar adduun nabiga anigu ma maqal laakiin adigu adaa kaa maqlay ninkaas hadduu hadalkaa yiri waa nin nama matalo cabdiwali nama cali matalo cilmiyare qor nama cabdiwali matalo cali cilmiyare qor youtube-ka qor qad friya waa haysataa u malaynaa yurubaa joogtaa cabdiwali cali si cilmiyare fiican qor cabdiwali cali cilmiyare waa eegaya doolid laakiin adigu hadhiin waa ka baxay asaga anagu ayad ugu weyn asaga saarayna annaga waa in waa ku social media aaminsanahay aan ka dhex arko waa in social media aan ka dhex arko sacad weyne oo ninkaas ka saaray qabiilka ka saaray aan ka dhex arko anigu waa kusoo bis laabanaa laga saari maayo kaa laga saari maayo laakiin qodob baa lagu qaadayaa diinta waxay ogashaa lagu qaadanayaa wax saaritaan maxay tahay diinta lagu qaadaya saas uba ka baxay qabiilka ma matala mar hore ka bax kaas erayga markuu afkiis ka soo baxo qabiilka ka bax laakiin waa in lagu qaadaa ti islaamka waa in lagu qaadaa aadaa u maasantaha saxanuun ku soo dhawaynayaa saaxib insha allah sidoo kale haye walaalo haye ninkaas wuxuu ahaa saxanuuni waa yar gaalkacyo aan kusoo wada kornay buu ahaa saaxiibana aan nahay waa soo dhawaynayaa fikirkiisa wuxuu yidhi sacad weyne waa kuu baahan yahaa ka bixin buu yidhi abwaane adiga iyo abshir bacadle baa meesha cidda abwaanka ahaa abshir waa iska tegey waa dhinta allaha u naxariisto runta u sheegi jiray jannadii allaha ka waraabiyo jannadii allah ka waraabiyo ninkaas alla muxuu ninkaas khayr daldalay alla muxuu ninkaas wax alla wuxuu nagu sifeeyey ilaahu ka soo gaar tolkay gaala raac noqoy bal fiiri saddex layda gooyo xadrada garangaarta u meerisha marisgodoo margaargaarsadoo giirka kor u taaga isla gaabiyo horiyo ahaa ku soo gooya halkiina ku gaardiya janna lagu galayay ku guulaysa meeshu la rabay gacaaladaydii ilaahow ka soo gaar tolkay gaala raac noqo oo tawxiidka garansii aadaan ku gallinahay bal inay ka soo go'an golaha rusheelo ma guweyni laakiin waxaanan igu soo gaaray haddii ay culimo noo soo galaan galab carabaye oo geed ardaalihii dugson gogosha loo dadsho garcadaaga garmaadow u sheekaynayaan caanagayn jiray garcadaaga iyo fuudka iyo gobolla hoosaadka waxun baa na soo gaari jiray gaajatiirashaah wuxuu ka sheekaynayaa abwaanka jannada allah ka waraabiye niman odayaala hoos ka alungeysanaya inta u yimid bay xooli u qaleen xoolihii markay u qaleen waxun baa na soo gaargaaray reereebkana siiyeen buu yidhi ma fahanta marka ninkaasi abshir bacadle jannadii allah ka waraabiyo meel wanaagsan inuu joogo baan caawa u rajaynayaa maxaa yeelay halkan nin oo cidda sacad ku jiray buu ahaa codkarnimo suugaanta haddii ilaahay kuu idmahayo ilaahay diinkiisa ugu gargaaray waxaa ka mid a inuu haddii ilaahay kuu idmaayo boqol baa ii bannaan wada bikaaraaha bil markaan la joogo bisha dambaan bedelayahay bacdigay ninkii guursadaa bada ka raacdaa ee baabkayga lama geli karo baxar baxuur waaye say noo waday oo awal sheekh cabdulqaadir nagula jirtay oo uways nagula jirtay oo sheekh cali samatar nagula jirtay oo sheekh cali cilmire nagula jirtay maanta waxay maraysaa nabi maxamed inaan sheekh bilow ku sheegno awliyo basa ulahayn maanta nabi maxamed bay naga geysay sooma ahan inaan bilow ku sheegno oo aan in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiyi ku niikino oo aan gabdhaheena niikiyo nabigay la kulmahayaan raallina aan ka noqono anigu maanta tolkay kama baxeen haddaysan raalli ka noqon
ay ka wada hadlaan sheekh mursal cilmi dhagood waa maqla waa ka hadlay laakiin meel awood meel hoo u baahan hadal wax ma tara adeer sheekh mursalow meel hoo u baahan hadal wax ma taro ninka afar daba jeex buu haystaa anaa soo sahmiye aan u dhacno anugu hadda xamar diyaaradan soo raacaya berri fog baa lagu duulaya haddii la yidhaha diyaarad baan soo raacaya afar daba jeex kaliyuu haystaa waxaasuu ku akhriyey adugu caawo ka bax ka bax ka bax ka bax ka bax ka bax aawo wax saacada meeshaan ku jiraan caawo waa ka baxaynaa waa baxaynaa waa baxaynaa anugu waa ka baxay saacad qabiil kaloo isoo dhaweynaya raadinhaya wax isoo dhaweynahaya oo ilaahay diinkiisa haddii ilaahay kuu idmahayo aan ku wada joogno oo ilaahay diinkiisa aan isla akhrisanaa raadinhaya wallaahi bilaahi tallaahi usa saacad ila sheegay ninkaas waa masiixu dijaalkii la sheegay yaa masiixu dijaal qof kastoo sida caawga aan u radinahayo cabdiwali cali cilmiyare u radiyaay wallaahi bilaahi tallaahi ilaahay ajar buu uga qorahayaa maxaa yeelay nebi maxamed khayru khalqillaahi waa afdalu rusul waa khaatima annabiyiin waa ruuxa keliya ee shafeeco qaadahaya maalin aan wax shafeeco qaadaya la arkin ruuxa aan maalin waliba aan ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah haddaadan ku darin muslim matii diinta islaamka kuma jirtid ashhadu an laa ilaha illa allahu keliya haddaad tiraah oo aadan ku darin wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah ninka shaksigaasi barakaysan oo ilaahay sidaas magaciisi ugu lifaaqay oo diinta islaamka sida loogu karaameeyey oo ilaahay doortay bilow nin ku shira bilow ma taqaanaa nota bilow waa nin alkuliista waa ninka sawirkiisa uu leeyahay hala maxabaysto wuxuu joogaa Nairobi 9 Street uu joogaa iyo 11 iyo shakshawan iyo ku nool yahay meelahaas ku qayilaa 6 bilood ninkii shishada u daara muslim ah inta kale waa gaalo tahliil buu soo dhiibaa tahliishaas wuxuu ku shubaa barkada anugu haddaan inta tago meesha aan barkadaas biyaha ka cabo sheekhow nacam baan leeyahay ilaa waa saxiroola gaalkacya fadhiye سبحان ملك القدوس سبحان من هو حي دائم لا يموت والله الذي نفسي بيده والله الذي خلق محمد والله الذي خلق كل المخلوق إلهي بان كدارتي عاو سعد وكبح كما تشيرو شقا كماله ما شيغانيو كلي waa abtirsanaya oo aabahay dhalay waan ku abtirsanaya laakiin sacad ma sheeganayo talka anu cid reerka anu ka dhashay waan ku abtirsanaya laakiin anu sacad ma sheeganayo waa ka baxay sacad ama ha laga saara cabdiwali gaal diinta ku qabiil ku wada jiri mayno oo diyo wadaagi mayno oo sumcad wadaagi mayno oo basar wadaagi mayno oo gargar wadaagi mayno oo deegaan wadaagi mayno oo xoolaheenu isla daaqi mahayaan oo caruurteenu wada dheelay mayso gaal cadaystay oo mujrim ah oo murtad ah oo diinta maalintii 50 jeer ka baxa wallaahi inaanan ku wada jirin qabiilka ama anaa ka baxaya ama sacad weyne go'aan buu ka qaadanayaa in cabdiwali laga saaro sacad sheer gareeya muuqaalkan cabdiwali gaalka u geeya asagoo ka baxay tolke isagaa fudude gaar allah ku rido u geeya gaalka u geeya sheer gareeya الله شهر قراية قال كعيو وحا كتراهي إله ربي وانا تم ملك الجبريل صدقه وحا كبقى يانو ملك الجبريل انتو صدقه وهل قرب ولقد رآه بالأفق المبين سورة إذا شمس كورد نبي محمد وحو أركي ملك الجبريل بل قوة دولية فيري ملك الجبريل وحا أركي سيدي إلهي أومي أصغى أومي وحولي يا ملك الجبريل سيدو إلهي أومي اللح بقل أو قرب ولي هل قرب أو كمي ذا بالوه هلاقي قوم وحال يري أدي لما قربوت أو اللح ذا بقل أو قرب كمي ذا أوفيديو ملك الجبريل مسرق يا مقرب ودبولي وح قرحنا الله أركي ماي الله أكبر أود ملك أسولي يا كور ملك انت ابو تغيا فرتون لايف بان كجرا اغدا تليفونك فرتون لايف بان كجرا اغدا لايف بان كجرا تليفون مره عاوه
tuuray live baan ku jiraa iga daa billahi calaykum iga daa live baan ku jiraaye ma telefonkan ma iga soo wacdi kale iga daa live baan ku jiraa walaalay waa war nabadeey miska sheeganaynaa sacad miska sheeganaynaa waxba ma galneen wallaahi billahi tallahna waxba gelin wallaahi billahi tallahna waxba gelin ba nambarkayga caadiga iga soo wac telefonkaas iga soo wacdee iga daa telefonka live baan ku jiraa fartuun ana dhibin walaalay waa wareey ilaa haddii kale gaalkacya darad ka timid oo ku ogaaya ku sheegayaa meel laisku caayay noqota gaalkacya ilaahay baan ku dhaartay sumcad xumada ya sumcad xumada meel gaalkacya laisku caayay noqoto waxaa lagu leeyahay sheekha barakaysan kugaan sheekaysana waxaa idhi cabdiwali cali cilmi yare baa waxaa idhi aan duulaan ku ahay baa la yidhi hoogaa beerka balaaya kugu dhifataan ahaan waa go'day baktiday baabana balaayo haddeertaanu balaayo kugu firdhinaya taasay aaminsan yihin below hadda caawi sariirta hoosteeda caawa balaa ku galays masdaqo buu iska soo dhigahaya abrisa waa ninkan suuqaadka u cunayay mas buu u dhaartay cid ka jaahilsan sacad in aysan qabiilada adduunka ku nool ku jirin anaa ka dhashay waxaana nin sacada nin ree hilowlaa nin ree cabdillah nin ina qaruuf ku caylaa nin ina xasa xaragaa saasaan u abtirsanaya aniga ma garateen saasaan u abtirsanayaa باهي فرتوني يقعد في بليس من فضلا تلافك يقعد في دي يقعد تلافك من فضلا بس بلاوان كوكا بنا ما قاعد إلي بلاوان كوكا بنا عاو كله والله بلاوان عاو كوكا بنا يقعد تلافنك وأقولي عاو كلا ليلة الله نبي محمد بن بعاو سيف كل دفاعي أنا كنت دفاعي عاو نبي محمد وهو كسر بها ساعات كسر لما دين كده قف يوسف كهاري أو يا سواق بتاع أو قف ما تودي سواق بيجوا هي أبوي مساعد با لا يا الله وكانه شوف الله إذا كان دقة ما يدير دي بدنا ورجالك عين تتجا وحي قبت إلهي بان كل دارتين أنا أستانك كده حبويه اللي بقى سوى دافت إلهي بان كل دارت وحي أمسيين رتلكي وحي أمسيين اللي بقى سوى دافت حق